kulanti wanaagsan idil ahaantii madaawadyaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada Sama TV iyo Somalisa TV halkan waa Minnesota waxaad ka wareysaan sidaan horeba idinku sheegay waxaan isugu nimi taageerada musharaxa Dr. Khaliif Xaaji Xuseen oo isagu ah musharax u taagan jagada madaxweynenimo ee Soomaaliya waxa uu go'aansaday musharaxu inuu u tartamo jagadan marka isaga ayaa caaway inoogu warami doona sababtii ku kaliftay Soomaalidu waxa ay tiraahaa nin durbaan tumay ilaaq dalbay waxaan guda galaynaa barnaamijkeena qaybta ka hartay waxaan u maleynayaa in la soo gaaray xilligii wixii aad meesha ku timaadeen aad hel lahaydeen balse kaftan yar aan ku darsado waxa la yiri magaalada Gaalkacyo gudaheeda ayaa waxa la daawanayay TV screen leh TV-gaas waxa ka khudbeynayay madaxweyne Obama waxaana aad u dhageysanayay dad qurba jooga oo reer Gaalkacyo ah inta kadib dadku waa ay sacabtumayeen khudbada madaxweynaha ay aad ula dhacsanaayeen laakiin nin reer Gaalkacyo ayaa wuxuu arkay dadkan sida ula dhacsayeen madaxweyne Obama marka waxa uu yiri maanta hadii madaxweyne Obama uu kasbaday dadkii reer Gaalkacyo waxaan aad baan ugu faraxsanahay marka Xuseen Khaliif waxaan u maleynayaa dhaqaalaha inuu soo bartay sida ay muuqata waa la xajacada loo yaqaanaa inuu la xajacada soo bartay bal Xuseen Khaliif waxa ummadda reer Minnesota ku dhageysanaysa sida madaxweyne Obama looga riyaaqay magaalada Gaalkacyo bal adigana inaan kugu riyaaqno ku soo dhawaaya kulaya fadlan ila soo dhaweeyo Xuseen Khaliif Xaaji waa musharaxa madaxweynenimada Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim marwooyinka iyo mudanayaasha xafladan ama madashan ka soo qayb galay reer Minnesota ama Minneapolis Soomaalida badan ee daafaha adduunka naga daawanaysa caawa ama Soomaaliya ha joogeen ama meelaha kale ha joogeen adduunka waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan sidoo kale idinkaga mahadnaqayaa ajiibidda aad ajiibteen sida fiican u ajiibteen ka soo qaybgalka waa hadalkan caawa halkan ku jeedinayo iyo maxaan ku raahdaa munaasabadan ayada aad ka soo qayb gasheen baan aad idinkaga mahadinayaa sidoo kale waxaan u mahadinayaa dadka dhageysanaya Soomaalida sidoo kale dhageysanayaan baan mahadinayaa intaan hadalka u sii gelin aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan caawa idin hor imaado halkan oo waa qiireysnahay hadallo badan oo magaratay gubaaba iyo dhiirigelin la soo jeediyay waxaa ka mid ah Bramberkii dahabo oo waxay maleynayaa markii labaad oo la Bramber ay ahayd waan jirircooday marka laakiin haddii hawshan ku socoto waxaaba dhici karta inaan jirircada barto waxba jirircoon hadalkayga marka hadaldan inay raadaan rabaa waqtigan uu yar yahay waana xoogaa waa qiireysnahay waxay soo xusiisay markan joog Sacuudiga aan ka maqlay Sacuudigu meel joog ka badan way arrintan waxaan kaga dhawaaqay 31 bishii May Jeddah oo ahayd magaaladii anagu aan muddo ku noolaa waxaan ku noolaa Jeddah 15 sano iyo jajab intii aan Canada ka tagay waa magaaladeedii waa magaalo aad magaratay dadku iga yaqaano oo intii ugu dheereed nolosheeda Soomaaliya bayna reer Guraabna hal meel muddo dheer kuma noolaano marka 15 sano waa garan kartaa ninka hal meel ku noolaa inay ahayd meesha ugu badnayd nolosheeda ahayd marka ayadan ku beegay inaan kaga dhawaaqo intii dalka aan runtii jeclaa inaan gudihiisa kaga dhawaaqo laakiin way suurad weeyday waxaa la yiri ma tagi meel ay rabtid kugu masimo waxaan khasab ku noqday inaan kaga dhawaaqo meel dibadda marka magaaladii aan ku noolaa aad la iga taageersanaa baan sidoo aad u fiican oo Soomaali kala gidisano ma sha Allah nabad waa ka soo horjeednaa oran jiro saaxiibaday waa yimaadeen ma sha Allah marka Jeddah ayaduna waxay kala gaaray u ahayd كلي بقى ترتمع كجدة معنا كنديد كجدة صعدة وأنا كلي من صوته وحنا ليه مالها كله أصلا مري حق بقى يقول ترتمع يا مركز جدة أساسي أي مهم يقول تاي عندنا ورنت إنك شيء وردان وحنا ليه يعني هبينا بفرسان دونا والسلام يا صاحب بدي سيد شرفت الأشرف لو عادهم بيجوا دويين وسيقول لك أنت سيد عاون ليش دويين يويه waxaan soo maray rabina Soomaaliya aado marka waxa la yiri Nairobi inaan martid ma aha Soomaaliya ma tagi kartid arinta Soomaaliya waxay ka go'daa Nairobi aan soo maray 3 bishii lahaad xaflad baan iyadan sidoo kale ka hadlay runtii way i tuseen inay waxa hadalka la sheegay run yahay dad aad jabaabiro waaweyn oo siyaasadda Soomaaliya xirafra baan Nairobi kula kulmay shan ugu dambeyntii waxaan tagay xamar
toddobadii bishii lixaad oo hadda bishaan ku jirno oon iyadana kulan badan ku yeeshay dad badan aan isku aragnay aan sheeko dheer dad badan ku wada yeelnay xamar wax yar baan kaga warramayaa isbedel weyn baa ka socda oo lagu farxo runtii isbedelkaas oo dhinaca nabadgelyada baa isbedel ka dhacay taasina waxay keentay in wax walba oo noloshii isbedel ka socdo oo waxa xataa isbedelay maaha aragtida physicalka oo xamar fikirka dadka marka la sheekaysatay dadkii hore waa ka gadisan yahay waddanimada moodo aan soo noqonayso isjacaylkii dadkii sida lagu soo dhaweynayo qadiyada marka ka hadashid qadiyada hadda laga hadlayo oo reer baa laga hadli jiray iyadoo xag sida nabadgelyada dhaqaalaha musuqmaasuqa waxyaalaha marka ka hadashid dadku aad bay kugu soo jeesanayaan oo way taabanaysaa marka anigu waxaan qabaa inay soo dhowdahay waqtigii waddanimada Soomaaliyeed ay adkaan lahayd oo horay loo dhaafi lahaa wixii ina halakeeyay Minnesota North America soo gaaray marka sidii Kenya loo yiri xamar uma gelayso isbaarada ay ugu dhigatay baa la yiri Minnesota ina martid maahay North America ma waxa ka soconayaan وكان وأنا قاعد هورتشو runtii waana indhaha soo baxay waan arkay waxa la sheegay inay sabuul xoftayna hayn inay dhabta hay Minnesota waa magaalo muhiim ah oo Minneapolis waa magaalo muhiim ah oo dad badan oo Soomaali ku nool yihiin inkastoo anigu reer Canada anahay baasaboorkan ayaan haystaa yaree waa ka hinaasanahay oo ka Chelsea baan ka qaadnay oo Toronto waxay ahaan jirtay meesha Soomaalidu ugu badan tahay marka dadkayagana inta ku soo xadeen وهذا وحلا يجري بقولك أفرت عندك هالكان دقن حكي مع كندا تاس حوجا الناس واجرة لكن ومرة أبو فرح سنة هيني من صوت قط هاي مهم الصومال النورد أمريكا دقن إيو صومالي وين بس صومالي وين واحد كل سنة هاي سامرلو كهل دونه واحد كل سنة هاي تبدأ العقد الصوت لو يلقاله ذلك وحوجا بدن لقالها ستة تبدأ كيم هذا والصومالي سوقله dib aan ugu noqdo xamar digitaankeygii waxaan haaminayay aan ku dhawaaqay inaan ahay musharaxa madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed marka waxaan awal iga ahayd haamin hadda waxa ii muuqatay rajada aad igu siyaaday oo waxay u maleynayaa inaan higsan karo baa igu soo dhacday marka arkay duruufta dalka taala iyo dadka fikirkiisa iyo tartamayaasha dadka aan meesha isugu nimid aan ku arkay waxaan qabaa inaan ahay candidate ay suurta gelin kara waxa uu aaminsan yahay runtii dad badan baa tartamayaal badan baa jira oo hadda dad badan baa ku dhawaaqay inkastoo aan filayo ayaamaha soo socday inay sii siyaadi doonaan rag igu horreeyay sheegeen qof walba in la arko oo wax fursad la siiyo competitionku business aad ugu fiican yahay waxaan qabaa sidoo kale siyaasadana in aad ugu fiican yahay dadka markii dad badan la arko waxaa dhici karta in doorasho la kala doorto ay timaado oo marka ugu dambaysa laga helo qof lagu magaratay la mahadiyo oo waxa la sheegayo ka soo bixi kara ilaahdeen xamar waa dib badan tahay xamar tagin waa diiday hatartaminta bilowga hore waxa la yiraahdaa hatartamin Absalan iyo marxad fure saaxiibka meesha jooga Absalan kan dad badan baa ugu yiri muwaalan tahay dad baa yiri lacag waa haystaa maxaa raadinaysaa waa la yiri wax walba la ii sheegay marka anagu waxaan yiri waa goostay waa tadgaya waa istikhaarooday Sacuudiga meel dhaqan bay leedahay ilaa hadalada language-ku dadku isbedelayo meesha aan ku nool hadda waxa la yiraahdaa waa la istikhaaraysta marna waxaan ku yiri waa istikhaaraysta meel laga maro marka ma jirtaa la iska daayay kan waa istikhaaraystay marka tiradaas numberka ah in laga naxo anagu ma qabo dad badan baa tartamaya runtii dalka gudihiisa markaan tagay dhawaan hotel baan deganaa Amira la yiraahdo hotel dad baan kula kulmay waxa xiislahayd marka habeenkii xamar hal saac mise 2 saac adba korbi u shaqaysaa maqribkii ay jirtay 1 saac 2 saac bay sii maraysaa oo manlay ba bandow ba naas ku soo rogeen dadku isku soo rogeen baa jira lama soo socdo nabadgelyada awgeed marka 1 saac iyo 2 saac wixii loo gaaro dadkeena hotelka degan baa meel inta isugu nimaadna fadhi ku dir baan ka bilownaa halkaas marka rag aan isku baranay rag kamid halka waxay igu yiraahdeen maxaa ugu tartamaysaa waxbaan sheegay waxay yiraahdeen anagu nin baa wuxuu yiraahdaa waxaan u maleynayaa laban nooc uu qofku noqon kara tartamaya Soomaaliya madaxnimada raadinaya waa waalan yahay ama inuu waalan yahay amba wax mabda'a oo uu rabo buu fulinaya
labadaas buu mid noqonayaa waxaan I hope inuu midkood adigu aad u socotid waxaan rajeynayaa waxaan isku tuunsanayaa inaan waalayn baan aaminsanahay waxaan qabaa oo aan aaminsanahay inaan shaaflatayno iskaaflatays iga ahayn saan u maleynayo waayo jagooyinka dalka ugu waaweyn kuwa kamid ah la offer gareeyay inta hadda waayaan siyaasadda ku jiray oo aan diiday inaan qabto marka in shaaflato oo jago ka raadis kala inaan ahayn waxa iga dhab ah inaan noqdo meesha ugu sareysa dalka sababtuna waxa aaminsanahay in mushkilada meesha Soomaaliya ka dhaqaaqi lahayd oo ruqada ay ka tahay inay tahay meesha dalka ugu sareysa ka khaldan yihiin meesha ugu sareysa meelo dhexe iyo hoos iyo waxa kama saxmi karaan aniga waxaan qabaa hoggaanka dalku inuu leeqleeqanayo waxa qabto mal dhaliilayo 100% wuxuu yahay malihi laakiin waxa loo baahan yahay hoggaan waqtiga hadda jooga waqtiyada la soo dhaafay hoggaan baa joogay waqti badan baa la soo maray hadda waxa muuqata waqti kala guura la jooga nimankii soo shaqeeyay meel bay keeneen jiirtii marka baawurku dib hadda u noqonaya wax dhaafiya baan qabaa in loo baahan yahay hoggaankaas waxaan qabaa inuu noqdo hoggaan adag oo meesha dadka businesska North America af Ingiriiska looga hadlayo business schoolska dhowr waxyaalood baa leeyahay businessku u baahan yahay waxa kamid ah location marka ay ku celceliyaan waxay yiraahdaan location aniga waxaan qabaa inay tahay problemka Soomaaliya hoggaan hoggaan adag oo ma garatay oo adeeg kaliya ma aha wax aaminsan oo keena waxyaalaha hadda jiljileeca dalka keenay oo mashaakil keenay waxa kamid ah ammaan xumo ammaanka in la sugaa dalka loo baahan yahay waxa loo baahan yahay in la maareeyo maaliyadda labadaas qodob isku xiran weeye inuu hoggaanku u leeyahay karti uu ku maareeyo maxaa la yiraahdaa nabadgelyada dalka iyo dhaqaalaha waa arrin adag waxaan asna dhawaan ogaaday inay jirto maama oo lagu cabirayo problem weyn marka qof ka yimaado awal waxaan dhihi jirnay libaax dhagihiisa la qabsanaya waxaad qabsatay libaax dhagihiisa baan oran jiray waxa hadda maqlay maama oranaysa oo tiraahda rag mood maahe wax kasta oo kale maaree hadda rag macnaha dumarna waa noqon kartaa filaya rag kaliya maaha ingiriiska man way noqon kartaa dumarka rag labadaba loo isticmaalaa filaya meelaha qaarkood marka rag iyo dumar hadda taas uma kala sokeeyo waxaa loo baahan yahay in dhagaha la qabsado arrinta Soomaaliya oo jirta oo labada qadiyadooda ay ugu daran yihiin dhaqaalaha iyo ammaanka marka waxaa jirta intaan gudbin program aan meelo badan ka sheegayo hadda qaarkiin inay maqleen ay dhici karto aan ku celcelin audience kana dadka daawanaya Minneapolis inaan xuso kaas waa qurba joog horta aan qurba joog saas isuma haysto waayo meelaha looga duulo Soomaaliya ma filayo qurba joog saas inay u noqon karaan Sacuudiga kamid ah Kenya kamid ah Djibouti dadka meelaha ku nool runtii qurba joog sax ma aha hay'ad maalin walba waxa arkaysaa wixii dalka ka yimid iyo xaaladiisa iyo wixii marka aan rabno inaan anagu inkirno xoogaa waxa lagu xanto qurba jooga oo iska saarnaa waxaan qurba joog ma nihin laakiin qurba joog waxa weeye waa mowduuc aad Soomaaliya looga hadlo waayo wuxuu u keenaa waxyaalo badan oo faa'iido dalka oo ay kamid yihiin investmentiga ka hadlayay lacag badan oo investment aan oranay transfers oo loo diro dalka qurba joog ka timaada oo Minnesota ugu horeyso lacagtaas waxa lagu qiyaasay $2 bilyan inay tahay $2 bilyan waxay rafli u dhowdahay dhaqaalaha Soomaaliya oo dhan wax soo saarkiisa markii dawladdu burburintu ahaa bay u dhowdahay lacagta hadda dibadda laga diro dalka gasha iska dhaaf dhaqaalaha intiisa kale wixiisa kale oo aan la tirin marka saas bay muhiim u yahay qurba joog dalka Soomaaliya iyo noloshiisa sidoo kale qurba joog waxa isna uu leeyahay waxyaalo muhiim ah dalka oo ah khibradda dad dibadda ka tagay khibrad bay geenayaan aqoon bay geenayaan fikrado cusub bay geenayaan oo dalka dibadda dadka gudaha ka maqnaa laakiin xam badan baa jirta waan rabaa in ay la qaybsado afka lagu hayaa nimanka qurba joog ah waxa ay leeyihiin dadka gudaha ah waa boosri xasin ugu sameeyeen oo shaqooyinkii bay naga riixdeen dawladdii oo dhan baa xitaa qurba joog isu bedeshay waxyaalo noocaas oo badan baa laga hadlaa cilmiga dhaqaalaha qodob eri la hada jira crowding effect crowding marka dawladda waxa la yiraahdaa waxay ka xoogtay
private sector kii lacagtii isticmaashay marka sidoo kale aad moodaa inay crowding out effect ku soo baxday dadka qurba joogga dalka gudaha markay soo galeen ay ka xoogeen shaqooyinkii iyo boos xoog leh muhiimka ah xoogaa marka xagga waxa ka jira masayr dadka dibadda laga masaysan yahay oo iyo dhaliilo la socdo oo leeyahay waxbay naga qaataan oo waxbay la tagaan mortgage wax kula baxaan waa la socotaan marka arrintaas xasaasiyadda runtii oo dhinacna faa'iido weyn aan ugu nahay dalka gudihiisa dhinacna aan lana ka dhaliilayo way jirtaa marka dalkii hal tago oo aan u qabaa generally waa gudaabinaya in la tago wax laga qabto xoogaa laakiin intaan la tagin hal la xisaabtamo hal la sameeyo ma waxaad ku biirinaysaa mise waxaad ka qaadanaysaa aan la gelin meesha oo hal magaratay hal naga tiriyo meesha dhaliilo badan oo aad magaratay qaarkood ay indhuhu ku soo baxayaan baa lagu sheegayaa qurba joogga laga sheeganayo laakiin taasu runtii ma qarin karto faa'iido weyn oo dalka qurba joogga gudaha ay u leeyihiin oo dalka waxay ka qabanayaan waxa badan faa'iidada waxaa la yiraahdaa markaan ka tago qodobka kale rabay inaan ka hadlo waxa weeyaan oo Soomaaliya mashaakilkeeda aanu islaahay caawo barnaamijkeega siyaasadda ka leexdo waxa yar qodobka ugu muhiimsan oo xoog in la saaro u baahan waxa weeyaan waa helitaan baarlamaan fiican waxa weeye oo ay tahay haddii baarlamaanku si fiicnaado oo dad macquul ah oo ummadda mathalay kala yimaadaan waxa ay dooran lahaayeen oo dooranayaan insha Allah madax fiican haddii baarlamaanku xumaado oo sidii hore aan ku soo oragnay ay noqdaan dad ayagu un jeebkooda ka fakaro ama ay kuraasi sida dhacay cycle-kii baan ku soconaynaa meeshii sharciyada shuruucda ka soo bixi lahayd ka shaqayn lahaayeen dadka horay si fiican dawladda loola xisaabtami lahaa dawladda qadiyadeedu ay ka hagaagi lahayd haddii ay noqoto dad maxaa garatay aan quality lahayn amba aan ka fikirin dalka dantiisa waa shafka ayaa dhulka lagu haynaya marka anigu waxaan xoojinayaa meelihii aan soo marayna aad dadka aan la hadlay xamar gaar ahaan dad badan baan la hadlay odayaal baan la hadlay duubab baan la hadlay mutacalimiin baan la hadlay in xoog la saaro sanadka maanta in la helo baarlamaan xubno baarlamaan oo quality leh taasna insha Allah waxay dhiirigelinayaan ayaan arkay oo dad badan oo high quality baan arkay oo loo dhiirigelinaya sanadka maanta in baarlamaanka ka qayb galaan haddii 150 taas ay dhacdo waxaan isleeyahay mashaakilka Soomaaliya 150 waa la xaliyay oo dawlad fiican iyo nidaam fiican iyo dad isla jaan qaadi kara baa mustaqbalka soo bixi doona caqabadaha hortaagan oo waxaa jira system Soomaaliya qalooc ka samaysmay oo doonaya inuu dib u dhigo taas oo baarlamaankii in qof raba inuu asagu ordo oo xusho inuu yesman loo ogtiin bagaati wax ka dhacay dadkii wadooskii tagay oo ka qayb galay waxay soo xusheen nin walba qof qaraabadiisa ama asagu kaliya codkiisa siinayo cid kale codsiin kareen taasina waxay keentay in baarlamaankii quality soo dhacdo sidii oo kale hadda ma jiro rol khasbay laakiin siyaabad aad la socotaan aad ogtiin baa jira dad siyaasiyiin ah raba inay ayagu doorashada galaan baarlamaankana xushaan halkaas waxaa ka soo muuqda xogaa cilada waxaa la isku dayay hadda soo dadaalo taa in looga hortago laakiin waa qadiyad jirta oo runtii rabta inay arrintu si hadda tahay ay ku socoto ama statuskooda in meesha lagu sii hayo baarlamaanka muhiimad buu leeyahay idinku muhiimad baad walba ciyaari kartaan ama Minneapolis jooga ama gudaha dalka fartiimo u dir ama la hadla waxa idinku dhiirigelinayaa inaad ka qayb qaadataan ololahaas ah in la helo baarlamaan fiican Soomaaliya loo helo oo dad fiican la helo cid rabtaan ha doorteen laakiin dad fiican haddii qofku meesha joogo oo baarlamentarian dadkana waxa uu tarayaa dalkana waxa uu tarayaa dadka waxa uu galayaa hadda 5 qodob oo aan meel badan ka soo sheegay Soomaaliya wax walba u baahan tahay in la qabto haddaan laakiin wax walba ballan qaado waxaan noqonayaa siyaasiga Soomaaliya baan noqonayaa mar rabna in taas noqdo aan ka leexdaan rabaa taas wax walba aan ballan qaadin waxyaalaha social sector-ka caafimaadka waxbarashada maxaa la yiraahdaa infrastructure-ka wax walba Soomaaliya way ka dunsan yihiin waa loo yahay in wax laga qabtana waa loo baahan yahay laakiin anigu waxaan qabaa wax ka hortaagan baa jira 5 qodob oo hortaagan baa jira waxaan qabaa marka in lagu focus gareeyo oo la liishaanka la saaro qodobada 5 ah markii lagu guulayso qodobada 5 ah baa waxa loo gali karaa kuwa ridada dhexe ama waqtiga dhexe la gaari karo oo waqtiga badan u baahan macnaha immediate maxaa la yiraahdaa
goals ama aniga aan xoog saaraya waxa kamid ah number 1 in la helo nabadgelyo. Nabadgelyadu waa problemka wax walba ka dhaqaaqlayihiin. Afwan oo ay xalayga hada nabadgelyadu waa qodob muhiim ah laakiin waxa muhiimka ah hoggaan la helo. marmar baa runtii maskaxda waxay u fikraysaa qodobka koowaad waa nabadgelyo laakiin waxaan intaan isla nafteeda isla doodayba waxa ay soo baxday in nabadgelyadu hoggaan u baahan tahay. haddaan hoggaan la helin nabadgelyo lama helayo. waa digaagii iyo chickenkii iyo eggii la sheegi jiray weeye ama digaag iyo ukuntii la sheegi jiray keelabooda bay noqonayaan kasoo horeeya way ahaa bay noqonayaan nabadgelyada iyo hoggaanku. marka hoggaan adag oo waxana diida waxana ogolaada baan qabaa in Soomaaliya ay u baahan tahay. anigoo aad isaga ilaalinaya inaan ku tigtigto hoggaankeena hadda dalka haya waxa badan in wax walba ha ama la ilaahdo ama ha ma isku mar la ilaahdo. qof hoggaamiyaha waa inuu wax diidaa waxna ogolaada ay soo ku dhisay ku macnaha bees garanaya ama ku arintaas ku salaynaya qaanuunka dalka iyo midlamirkiisa iyo wax walba. hadda waxa arkaysaa waxyaalo badan oo ma garatay iska socda waraaqo badan iska socda dad la isaga magacaabayo garaad badan oo la iska bixinayo iyadoo wax lagu salayn waxa rabta hadda xawar ka helaysa badan kooda waxa isleeyahay arrimo siyaasadeed baa wada siyaasadda soo socota hadda socoto waqtiga lagu jira daraaf gareynayo keenaya laakiin inta qof warqad wato oo diblomaat baan ahay leh iyo inta janan labisan ilaahay idin maqso ma garatay taas macnaheedu waxa weeye ma joogo Soomaaliya hoggaan oran kara qofkan janan ma la siin karo because of this waxaan waalay Allah naxariis aadan Abdullah Usman baa in loo keenay Soomaaliya oo la yiri waxa loo keenay dalacad jarranimo korneela أنا هذا نول ويا سومالي ويا هذا يا عبد الرحمن هذا عبد الله السنان الله نحرسه ورافض وحقوق قري وأفرتن شرب نكوها وأربو إيريا سجنا الله قدوه وحكى أنت صوري بس تبرو عليه وين الشقي سيء ومن كم نوع جنان وحلو بها هي مركانين إلى هذا نك سكول ما دكان جنان من نقول waxyaalo badan baa jira marka oo dalka ka khaldan wada caawadan taa ka hadlo waxaan ku noqonayaa professor professorada markay hadlayaan aad u ixtiraamayo walaalkay Cabdisaan ogaan adduunka laga ixtiraamo oo markay meelaha marayaan adduunka loo soo istaago haybad baa jirta qaran oo dadku siday u hadlayaan iyo siday u dhaqmayaan iyo waa la isku ixtiraamaa marka kaas baan rajaynayaa inuu Soomaaliya yimaado ogaan garan kara qadiyadaha adduunka ka socda marka loo sheego waxa jira dadka qofka madaxda ah wax walba soo khabiir kuma aha laakiin wuxuu doontaa dad khabiir ah waxyaalaha qaarkood erida adan garanayn hadaad madaxda waa qof ku tiirsanaa yaqaana qofkaas wuxuu ku soo qoraya waxa muhiim marka aad inaad wixina garan kartid marka lagu soo qoro inaad garatid khasma inaad taqaan laakiin marka lagu briefing lagu siiyo ma inaad garan kartaa saa adduunka meelaha marka tagtid ama aad ka khudbeynaysid waxaan qabaa nooca in marka wax barashada basic ah qofka aqoon inuu leeyahay adduunka Soomaaliya ka midalaya taa muhiim weeye ayada waa garan kartaa waxa ula jeedo hoggaanka anigu waxyaalaha aan sheegayo waxaan isleeyahay waxba ka qaban kartaa oo wadaad baa waxa la yiri in macallin biyamaalo miyaa la yiraahdo sheekh biyamaalo oo khaldaya macallin biyamaalo baa la yiri macallinow waxba lagu sheegayo awliya taariikh maxaa ka jira wuxuu ku jawaabay dadkuna waa leeyihiin ana waa istuhmaya anigu intaasaan isaga baxaya naftayda daan ka hadlo ku sii dheeraan mayo inaan wax hoggaamin doono insha Allah waan rajaynayaa waxaan ma iraado wixii khaldan wixii saxana inaan aan ogolaado oo waan aaminsanahay marka qodobka hoggaanka waa ku dheeraaday qodobka labaad waa amaan la'aanta dalka ka jirta waxa amaan la'aanta soo dhan waxa la yiri salaadi meel kasta la tagayo halad tukado waa la isku raacay ama waa laga badin waay ma mahaba jirtay noocaas ayadana ahayd marka wax kasta socdo amaan haddaan dalka laga helin lama helayo nabadgelyo amaankaasna wuxuu ku soo ururay in ciidan qaran la helo ciidan la qaranna waxa aan ka sheekeynayay hortaagan in la sameeyo ciidan qaran oo moral leh oo tababar leh dibadda loo qaado dad lagu soo tababaray dad la soo celiyo mushaar bay waayaan iyaga dadka dhaca
marka ciidan qaran in la helo oo dalka badbaadiya oo u noqda bedel ciidamada gudaha dalka hadda jooga oo shayada dalka xoogiisa gacanta ku haya bedel u noqda saraakiil Soomaaliyeed oo tayo leh ay madax ka yihiin baa muhiim u ah si loo helo ciidan qaran anigu ilaa xad ma istuunsanahay oo waa tababar ciidan oo kala gudsan baa soo qaatay waxaan isleeyahay dhinacaas waa ka fahmaysaa maaha dhaqaalayahan inaan ahay dagaalyahan ana marka waxaa dalku leeyahay saraakiil hore aad u qiimo badan oo qaarkood ay bilada ku qaateen ciidamada hogaamintooda iyo magaratay iyo hawlaha ay soo qabteen waxaa loo baahan yahay marka in ciidamada lagu dhiso professionalism ee aan lagu dhisin reer iyo maxaan ku raahdaa sheeko gaagaaban ee ciidan hogaanadii sidii Daawud Cabdille xirsi oo kale dad u dhigmo oo kale in ciidanka qaranka loo raadsho oo tayo leh oo integrity leh ayna saako lagu hogaamiyaan qaba anigu taliyaha marka madaxweynuhu waa taliyaha ciidamada qalabka sida duusan asagoo marka fikir fiican ka haysan ama uusan saas u arag ciidanku ma dhismayo waa in loo helaa marka ciidanka waxa uu u baahan yahay iyo moralkiisa waxyaalo badan oo in la ilaaliyo u baahan baa jira haddii ciidanku mushaar loo waayo ciidanku qoriyiisu gadanaya ma ku dagaalamayo ciidan qoriisa gatayna yaa discipliin male dad ku dhacaya ognahay musuqmaasuq aad u badan baa qaranka ka jira waxaan ilaahadaa ereyga saan isticmaalaa musuqmaasuq baa ka tifqaya maamulka dalka ka jira waxaa caddeyn u ah raboorkii ka soo baxay xanta Soomaaliya waxaa maaha iyo lacag buu haystaa intaas milyan buu haystaa iyo guryo meel ka dhistay waxa ka hadlamay raboor documentary way oo World Bank uu soo saaray in dalka lacagtiisa la dhacay taawin ognahay waxaan isu sheegaynaa maaha World Bank uu iskama qoro wax dad baa ay weydiiyay maanta asaa lagala shakiysanayay wax ayna soo baarin inay iska qoreen anigu ma aaminsani waxyaalo qiyaas la khaldi karaa waa jirtaa ama qof lagu khaldami karaa waa jirtaa laakiin raboorku wuxuu ku base garaysan yahay aqoon iyo baaris iyo waraysi badan oo la soo qaaday buu ku base garaysan yahay marka waxaa muhiim ah in dalka laga helo in la diido in wax la xado hogaanka waa inuu san waxadin maaha inuu san waxadin waa inuu diidaa inaan wax la xadin dad waxaa jira soo wax ma xado laakiin ishu ka qarsanaya in wax xadaya taas ma aha responsibility baa ku saaran adigoo madax haddii ninkii kaa sarreeyay aad ogtahay inuu waxadayo inaad ka yeeshid inuu waxado ama u sahashid khalad weeye soo dambi baan u arkaa inaysan ahayn marmarsiyo hebel asagoo wax ma xaday hebel baa waxaday marka ana waxaan qabaa dhaliisha dowladda weyn oo dowladda oo dhan bay arrintaas ay wada saameynaysaa aniga haddaan hoggaan ka qabto waan la dirirayaa musuqmaasuqa tooth and nail xoogaa ingiriisi ilaa ku dadara maaha aad waxaan fahmaysaan baan malaya marka I will fight corruption tooth and nail baan leeyahay dan si kale oo yiraahdo ninkii wuxuu hayay la waayo wuxuu hayay la waayo asaga la waayay waa inay dhacda taas waa in dad lagu faarigareeyaa shaqada lagaga cayayaa haddii ay waxadaan ma aynu aragno ma badna waayahan dambe qof baa wax maqlaysa waxa uu xaday corruption buu galay wasiir meeshiisu iska jooga kuwa kiisadu lagu qofna lama hore shaqada laga celiyo waxa way waxaad markaa laakiin mid shaqada looga ceyrinayo hadal buu yiri iyo hel bay isqabteen ba shaqada looga ceyrinayo laakiin wax tuugo wax looga ceyriyo mayna arag taas anigu waa ku dagaalamaya inay dhacdo hadii awood aan talada gacanta ku qabto in system horta la helo madaxweynuhu asagu dawladda mana ceyriyo mana ma shaqadiisi inuu qof ceyriyo la kala qabto madaxweynaha iyo wala wasiirada laakiin waa in system la helaa la isku raaco midda la isku raaco barnaamijka lagu xisaabtamo haddii wax la xado qofku xada waa inuu qiimaheeda bixiya waa in system lagu shaqeeyo waa inaan qof wax xaday oo tuugahayn uusan soo gelin dawladda meel muhiim ah loo dhiibay waxyaalahaas baa aniga madaxayga ku fikraya baa ku jira barina in la wada xisaabtamo oo aad weydiisaan baan diyaar u ahay qodobka kale waa in la helaa afraad waa ilaalinta sharciga iyo sareynta cadaaladda haddii aan qaran aan cadaalad usan yeelan qaran ma noqon karo dawladda sharciga ugu sareeya waa dastuurka qaranka haddana madaxweynaha iyo inta ku xigtaa ana dastuurka ilaalin dadka hooseeya shuruucda kale oo dalku leeyahay iyaguna way ku tumanayaan marka furan madaxweynaha ilaa iyo qofka oo xaqaya oo ama ah garaaniga waa inay sharciga sida u wada ilaaliyaan oo ay meel kasta ay u taagan yihiin difaacadiisa waa in waxa aad aniga igu wareegay in qabyaalada waa ka hadlayaa in sharcigu uu ka aad u ahaado mid sareeya
oo noqdo shaqo muraayada dalka hagaysa oo laga eeganayo haddaan Soomaalinahay waxaan necabnahay cadaalad darrada sharcigana waa jibinaa waxaan ma yahay xoogaa inay contradiction tahay oo adduunka aan kaga gedisan in cadaalad darrada ka qaylisid haddii qabyaalad lagu sameeyo boos lagu diido waxba xaganaysa waa qaylinaysa inta meel ka soo laatay baa qof oranaysa ii fuutiyo waxaan shaqadaan amisi ama waxa eexo وانا كقيل نسا هذينا لواس contradiction كهذا Soomaali hadaynu leenahay waa nagu caawiye qaladii sharci waa ayna sarreyn taa qodobka waxa ay wixiga qodobka ugu dambeeya waa qabyaalada oo anagu xoog saarayo Cabdullaahi Subdaantima Cabdullaahi Haristo waxa uu ka tagay hadal xikmad leh oo la yiraahdo dugsi mala qabyaaladi waxay dimisan mooyee waxaad moodaa ninkaas inuu qodorasay Soomaaliya in qabyaalada dimi doonto way dhacday way inaga duntay dalkii qabyaalada dalka dimisay runtii iyo hoggaan xumo وأسوأان لبا أسوأ توي مركب وأنا قرنا إن قبيلته أي problem أنا قلتها أكش رنتي وعذر عن قرصاني ويا وإن كرنا مركب غرض قارب حقوليه بدنا قبيلته وحلو قيبين أو محلو أحكي كلام له بس ديبني أنا وحنا قبا إن لقى صنوع سدي بداس أو قبيلته حلو بلا بحلا يرايد كده بسي لود سولين تبع ترتبيه ما ولا جده مركب قبيلته waxay tahay mushkiladu weyn aan haysto inaan qalano weeye oo inaan la dagaalano ay muhiim tahay oo aan la qarsan inay problem tahay in la qarto weeye marka problem adaa xanuunsanaysi xanuunka hadaa qaratid waxaad gaartay nus inaad dawadiisa iska daweysay laakiin hadaa increase state of denial baan ku tiraahdaa af ingiriisiga ama qoladina halkan degan hadaan ku jirno waligeen ma dhaafayno xaalkeenu siriye ana marka waxaan qabaa in laga استراتيجيكالي lagu guuro fikirka qabiiliga in qaranka lagu dhiso in dawladda shaqaalaheeda aqoon lagu xiro aan qabiil lagu xirin hadda waxaan aragnaa wafdiyada dibadda u baxa waxaan ognahay in 4.5 ilaa lagu tago oo la isku qabsado yaa baxay reer baa ka maqan wafdigan u bixi waayo one baa ka maqan waxyaalaha nasiib darrada dhacan oo taagan weeye marka aniga waxaan qabaa in professionalism amba merit shaqaalaha dawladda lagu xiro haddii cid loo buradeynayo aan qabiil loogu buradeyn noqoto in lagu buradaayo dadka laga tira badan yahay iyo dumarka in ay noqoto inay yeeshaan inay buradeynta yeeshaan baan qabaa aan qolo la oran qolaas ka maqan 5 qof baa la qaadanaya meel loo qaadanaya 5 qof in 5 qof qolay kala timaada aan ma qabo waxaan qabaa in imtixaan loo tartamo nasiibkood ninka hela saddex isku qala hadii hesho meel kale ay dhici kartay in tartan kale ka galaan oo qoliyaha kale wax ka helaan ina kobayr lagu noqon levelka siyaasiga xogaa adag tahay in taa lagu apply garay laakiin civil service ka iyo dawladda dhexdeeda iyo shaqaalaha dawladda iyo shaqaalaha wali muhiimka ay ka yihiin diblomaasiyiinta security-ga dadka ka shaqeynaya waa meelaha adduunka ugu muhiimsan weey waxaana lagu bas garanayaa hadda qabiil hay'ad ugu muhiimsan dalka la oranaya reebel laga raadiyo waxa dhici karta in reebel oo hay'adaas ku jiro kaasa waxa loo dhibiyaa qofan weligiis ka shaqeynaya security baa loo dhibiyaa marka yareeha taas anagu waxaan ku dadaalayaa inaan dhinac maro oo ay merit wax lagu raadiyo qabiilkana uu ahaado wax oo laga gudbay marka qodobadaas baa aniga barnaamijkayga ugu xoog badan oo ku dhisan yihiin sida lagu fulin lahaa marka waa wax u baahan in dadku aamino dawladnimada dawladnimada iyo madaxnimada la aamino dalka inuu madax leeyahay la aamino waxaan qabaa in la fulin karo hawlahaas madaxdana waxaa laga rabaa iyagana inay keenaan wixii lagu aamini lahaa in qofku wuxuu leeyahay haddii la ogyahay inuu fulinayo madaxda ah waxaan qabaa dadku inay isku soo dhawaanayaan oo la raacayo oo awoodda dadka wax ka xog badan ma jiraan ciidamo badan oo shisheeye la keeno lacag badan oo banaanka laga keeno waxaas haddii aan aamin darro jirto ama tuugo jirto ama beeni jirto la sheegayo waxa ma xalinayaan laakiin dadka shacabka hadduu aamino waxa dawladdu leedahay inay wax sax yihiin ay aaminaan ay ku kalsoonaan karaan ana waxaan qabaa qodobadaas waa fulayaan waxa loo baahan yahay madaxnimo la timaada in dadku run u sheegto inay cadaalad ku dhacdo inay wadanimo abuurto shacabka dadka waxa loo kiciyaa wadanimo dawladdu walba waxay leedahay wax wadanimo la yiraahdo in iyagu dad barayd leeyihiin isla weeyihiin sharaf leeyihiin hoggaan leeyihiin calan leeyihiin waxaas oo dhan waa calaamado dadka
آمسية شعب كودا قف كسدل كسدا وتكتيت وحسوها يسا أدون كنا وفي أنا قارسين المهنة أنا صومالي ما نهاي أنا قاعدون كوفي عام marka hadalkii waa soo dhameynaya waa idinku dheeraya malinaya dhowr su'aalood baan aqbali doonaa yeeli doonaa inaan ka jawaabo marka inaan waxa noo haray waxa weeye waxa sheegayno dhasan fulinaysan ku aamin tirada ereyga baa ugu daran wala kala aamin bah inaan galgalno baa loo baahiyaa malinaya dadka madaxda Soomaaliya jooga si loo aamino waxay leeyihiin inaan galgalno si noo aamino ninkii yiri bent sheegi jiray oo la yiri lagu aaminayo waa galgalanaya la aamino يا طبعا نجلس ويسان إن شاء الله لهينا مقرتي هنتوتس توصل نقطسيو أتبان إنك يوم مهذا علينا يا سودوين تشرف كلا يدريسك يو مقرتي يو دلقات أو دلقاتين وحي عن كتجينا وكتجي يوم مالك لأنك شوية ما هي هذا وأنا ضافتي وقتي وأنا وصحبة وأنا محسنتين هذه أبو ماتسيهي المشرحة مدحون النمو دكتور حسين خليف حاجي جامع وحافرية دتك غير مينيسوتا إنay yihiin dadka ugu badan rag badanna waa imaadeen baan u malinaya halkan musharaxiin oo raba Soomaaliya inay ka noqdaan madaxweyne laakiin walba wuxuu la yimaado ayaa lagu dooran doonaa insha Allah hadii Allah wada ogolaado حسين سادو صوتك سرو دكتور حسين laba arrimood oo Xuseen uu sheegay inuu yahay laba arrimood oo aan uga baran nimankii madaxda ka soo noqday Soomaaliya intii ay burburtay oo Xuseen sifooyinkiisa ka mid ah aad baan u jeclaystay mid waa inuu yahay nin isla qabweyn nin isla weynida diinta islaamka waa qabtaa qofka sharafkiisana weeyo inuu qof isla weyn yahay oo yacni waxa u cuntay inuu diidi karo talabaadna waxa weeye waa nin dhalinyaraha oo aqoon leh soo shaqeysta oo nin boosad maro wata ma aha oo meesha oo yacni maartay asagoo oo dhaqaale doona waa nin doonaya inuu wax qabto labada arrimood aad aan u taageersan marka su'aashu waxa weeye arrimaha meel laga marin baa jirta oo qofkii meesha taga qabsata nimanka international community-ga iyo dowladaha iyagan niman yes oran in baa meesha kama shaqeeyo marka حسين نجس ما قاعدنا يسون هالشيء وعول بينه يا ما كهوش أصلا ما رأيها يا ولدنا السلام عليكم. ولكن ما هسني هاي ساشي سؤال صحوي أو جرته international community وحش دوين وما أعرف أنا problem إنك وياه haddii waxaan ku masaalaa haddii aad jabtid oo guri hortiis fariisatid adigoo jaban cid alay cidii ku soo agmartaa baa ku taabanaysa oo ku qaylinaysa qof walba aad ku taabto waad ka qaylinaysaa kana ay taabtay inaad iskabtid oo meesha ka kacdid oo socotid weeye marka ma cabaadaysid mana qaylinaysid haddii Soomaalidu iraadadeeda ay qaadato ayadoo ay israacdo oo ay dhaqaaqdo international community way iska dhicin kartaa laakiin haddii adigu aad waxay ka faa'iideysanayaan international community kala qaybsanaantaada hoggaan xumadaada wax shaqaysi la'aantaada haddii laakiin adigu aad dad noqotid oo dadkaaga ku aamino saacad baan international community ugu yeeri karnaa gacanta iraadada dadka la waayay ayaga wax kala sheegayaan ayaga wax kala qaybinayaan qof yiraahda dalkan anaga madax ka idinku madax kama tihiin wala gaari karaa anigu marba inaan ku mashquulo marka bilowga international community inaan saxaxagano balki marka dadkayga helo hawl baan oo taala mudane Xuseen orta waa maasantahay su'aashan ku weydiinayo waxay tahay Soomaaliya ciidanka maadaama uu corruption weyn ka jiro waxyaalahan waxaan rabnaa oo ciidanka sida aad corruptionka looga saari lahaa iyo wadanka wax difaaci karo oo wax ka qaban karano waa ciidanka ciidankiina waxay leeyihiin mishaarkaasi sida aad ku heli lahayd iyo sidaad ciidanka u maareyn lahayd taas waa su'aasheeda iyo saraakiisha ciidanka sida saxa oo dhabta aad ku heli lahayd wassalaamu calaykum waxa weeye ciidanku waa fundamental problem ka jira Soomaaliya ciidanku laba problem baa jira lacagna la'aan baa ugu daran shidada ugu haraysa waa lacagta mushaar askari dush mushaar lahayn waxana lagu taabay askari waa carruur bana lagu taabay askari ma la taabay shaqada urusay
haddaadan askariga sida carruurtii aan caanasiin aadan biyasiin uusan cunto helin adigu kusoo jeensanaya marka waa inaan u dilgaraysaa sidii inuu carruur yahay oo kale xitaa intaan hawl adag la galnay oo soconay maalmo soconay waxyaalaha marka askarigu cuntada waayo waxaa uga daran tubaaka ama sigaar hadduu waayo wuu kugu soo jeensanaya abshir baa markhaatiga ay garanaya marka askariga waa inaad mushaar waayin mushaarkaas marka laba problem buu leeyahay mid dawladdii maamulka ka jiray iyo corruption ka jiray iyo lacagtii dawladda oo dhexda ka baxaysa Soomaaliya lacag la'aan inay xisaab u maleen lacagta laga hadlayo la sheegayo lacag la'aan ma jirto lacagtii dawladda imanaysay oo soo galaysay khasnadeedii baa meel ka daadanaysa number 1 meeshaas waa in la qafilo weey number 2 saraakiisha dhexdeeda waxaan qabaa sida aan wararka ku hayay waxay ahaayeen lacagtii loo soo qoray ciidanka loo qaaday baa dhexda laga siibay ciidanka la gaarsiinay oo xitaa ama number beena waxaa koobana dalka Soomaaliya kala sidiisu yahay ama dalalka si ururadu ka dhacaan ama dawladdu jilcdo markii dawladdu dhacaysay ghost soldiers waxa leedahay jira askar aan jirin baa lacag lagu qaadanaya waxaa lagu oranayaa command waxaan haynaa ama taliya waxaa noo joogta 50,000 askari waxaa dhici karta in 10 askari ku joogto 10,000 ku joogto taasna waxay saraakiishiiba corruption ka samaysay nin walba ku qaadanaya intaas oo lacag marka labada levelba corruption uu ka jiraa marka waxaa la jiraa in la jiro waayo corruptionka oo aan loo dul qaadan ninka lagu helo waana qofku ugu balaqaada inuu lacag helayo laakiin haddana safety-na ay agtaa la tiraahdo dad lacag xadid waa cunaya see loo helaya anigu waxaan qabaa saraakiil quality la wajah saraakiisha unfortunately Soomaaliya ciidamadooda hadda waa waaweyn wixii da'an waayin oo quality loo aqoon ciidan leh waliba ciidamadu kala gedisan waa aqaan aniga ninta iyo yimaada janan baa ciidan ma xukumaya ma oranay ay naaw ninka ciidan xukumaya ninka ciidan xukumaya ciidan soo xukumay aeronautica nin aan ciidan ku dhiimay waa garanaya aniga nin oo maxaa la yiraahdaa communication bartay expert ah uu ciidan u bartay ama rag baa wax soo barteen madaarada diyaarada ka kacaan oo ciidan u qornay la janaal ah hadaa ciidan u dhibtid isku wareerayaan command ciidan soo qaban jiray inventory soo ciidan soo xukumi jiray way ninka loo baahan yahay in mudnaanta la siiyo ama ciidan soo xukumi jiray khibrad yeeshay ragaana wixii aan hawl gabin in la hawl galiyaan qaba rag bilada ku qaatay baa jira Soomaaliya ciidamada dagaalka ku jireen oo maanta suuqa jooga waxba aan qaban rag oo maleeshiyad beeleed saraakiil garad lagu siiyeen waa korneyl iyo generaal la siiyay marka anigu halkaas weey meesha ka duulaya rabaa inaan ciidamada ku hagaajiyo bismillaah wasalaatu wasalaamu alayhi waxaan rabaa su'aashan ku diinayo waxaa waaye Soomaaliya hadda waxaa ka dhacday haddii Ilaahay kugu guuleeyo madaxtinimada waddanka Soomaaliya waxaa ka dhacday maanta ilaa 2,000 oo haween ka badan intaan aniga aqaan waa hadda degan banaan koonfurta oo ha jiro la koobsaday rag koobsadayna ay la degan magaalada marka ma laga yaabo marka adiga ku inaad dadka maxkamada soo saarto waxaa iri aniga prioritiska waa kala horeeyaan horta waxaan ku masalaa Soomaaliya baabuur noqday oo motorka noo gareeyay wuxuu u baahan yahay marka hore soo in la motorka la furo maaha mechanic loo helo maaha waxaas laga hadlaa haddii qofku yiraahdo gear 5 ka ku kaxayna gaariga mase 3 waa adkaanay anigu ma sahlanayo fursad inay wax sahlan tahay waa qadiyad fun jirta cadaaladana haddii ay sarreyso way helaysaa waddankeedu wataan qodobkan ka hadlay cadaalad inay sarreyso weeye Soomaaliya wixii ka dhacay bad waxa ka dhacay marka kulli aniga waxaan ku hadda mar raba inaan diversion wax u sameeyo anigu haddaan maamulka qabto waxaan ku dadaalaya inaan qodobada shanta marka cadaaladda bay noqonaysaa tan adres garin doonto dumarka wax loo sameynayo laakiin priority waxa weeye in shanta qodob lagu shaqeeyo oo ma garatay dambiye ka daran baa jira dadka ka dhacayo waa dambi xun weeye kursigu anigu inkastoo labada kun ay wax cusub runtii waxaa meelaha Soomaaliya kursigu waxa uga badan Kongiyo aad looga qeexayaa ilaa kursi aan caadi ahayn baa ka jira malaha waa under reported meel xariyaha qaxootiga waa la socda in kursi ka dhaco laakiin labada kursi war cusub weeye marka waan insha Allah focuskaygu wuxuu aanaya aniga kuwa shanta qodob waxa ayaga meel ka taabanaya cadaaladda marka aan u deenayo inay taas ka barbarayso Dr. Hussein aad buu mahadsan yahay waxaan rabaa horta halkan ugu mahad celiyo qolooyinka miidiyada oo anigu aan ka mid ahay oo iyagu dadka halkan caawi isugu yimi inta hadda meesha fadhida maahe dad kale oo inta ka badan gaarsiin doona miidiyadu waxay ka mid tahay bridge-ka isku xira dadka marka caaway Dr. Hussein magaalooyin kale laga daawanaya aan halkan ahayn aad baa mahadsantihiin dhalinyaradiina hawsha xilkasnimada ay aad u wadaan community-ga ummadda Soomaaliyeed
waan iska soo gabagabaysanayna waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo dadkii soo qaban qaabiyey xafladan caawa la isugu yimi ee ah taageerada musharaxa madaxweynenimo Dr. xuseen khaliif jaamac oo isagu ah musharax Soomaaliyeed waad mahadsantihiin waqtigiina qaaliga ee aad hurteen dhammaantiin haweenka iyaga carruurtooda ka yimi iyaguna aad bay u mahadsiin oo mahad gaar ayaan siinayaa waliba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wanaagsan idil ahaantii madaawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada Sama TV iyo Somalisa TV halkan waa Minnesota waxa caaway gobolkan Minnesota booqasho ku yimi musharaxa madaxweynenimo xuseen khaliif xaaji jaamac oo isagu caaw la kulmay dadka reer Minnesota kuwaas oo aad u soo dhaweeyay tusayna fikradiisa musharaxnimo balse aan ugu ogaano waxyaabaha uu rabo inuu u qabto dalka uu haddan musharaxa u yahay xuseen xaaji khaliif kusoo dhawow Sama TV iyo Somalisa TV waad mahadsantahay walaal waan idinka mahad celinayaa guud ahaan warbaahinta doorka faacilka oo muhiimka ay ka qaataan siday warka ama akhbaarta u gaarsiiyaan dadka Soomaalida gaar ahaan telefishinkiina iyo sidoo kale waa uga mahad celinayaa dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaaladan Minneapolis soo dhaweynta fiican oo diiran oo caawa ay muujiyeen aad baan ugu faraxsanahay inaan caawa Minneapolis joogo su-aasheeda ugu horeysa anigu waxaan kusoo bilaabayaa nimanka musharaxiinta waxa ay yimaadaan meelo badan oo dadka ku nool ay yihiin dad iyagu noloshoodu si caadi u haysta ma kugu jirtaa qorshe ah inaad booqato meelaha ay ku nool yihiin dadka Soomaalida ee qaxootiga ah ee iyagu aadka u dhiban bal inay arkaan fikradaada iyo inaad kula taliso bal sida aad dib ugu celinay dalka Soomaaliya qorshe noocaas aad ugu wadataa su'aal fiican weeye walaal hadda baan bilaabay safarkii campaign-kii ama ololihii doorashada laba asbuuc meelahaas baan ku jiraa waan marinaya way ugu jirtaa qorshaha inaan arko kaliya maaha dadka ladan oo meesha fiican ku nool oo si fiican soo dhaweynaya dadka Soomaaliyeed ee rafaadsan ee dhibaatada haysato inaan indhaha ku arko telefishinada waxa hore waan arki jirnay waa iska marin karaa duruuftooda laakiin aniga hadaan dadkan ka mid ahay bay noqon doonaan hogaamiyaha insha Allah aan noqon doonay kamid yihiin marka inaan arko oo duruufta ay ku nool yihiin arko aan la qaybsado maybe inaan hadda wax weyn ka qaban karin markan laakiin way igu jirtaa si aan hadhowto madii awood Allah siiyo aan talada la qabto si aan wax uga qaban lahaa way igu jirtaa inaan soo booqdo gaar ahaan xamar oo dhawaan rabo inaan ku noqdo waxaan rajeynayaa inaan soo arko meelaha ay ku nool yihiin kugu jirtaa dhinaca Kenya oo aad ugu badan yihiin xorooyinka Otaanga iyo Xardheer bal inaad booqasho ku tagto aad gaarto si aad ula wadaagto shucuurtaada iyo waxa aad qabto ma dhihi karo hadda runtii madaxayga kuma jirin laakiin kulay inaan arko meelaha ay ku nool yihiin dalka meel badan bay qaxootiga ku jiraan Kenya xoogaadi waa ka fogto Soomaaliya ka baxsan tahay hadda aniga waxaan ku wajahanahay inaan dalka ku noqdo marka meel badan oo dalka aabi joogaan oo dad displaced ay joogaan xiriir ku leeyihiin marka Kenya waa Soomaaliya meel ka baxsan laakiin hadda aniga fikirkeyga waxa ku jirta Soomaaliya gudaheeda horta inaan arko kaasna wax iga maanacayaa ma jiraan in dabcan aado maamul goboleedyada marka loo noqdo dalku waa balaaran yahay dalku qaybna waa ka duusan yahay qaybna waa ka dhisan yahay meelaha qorshaha kugu jira inaad tagto maxaad kula talinaysaa maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ee haatan jirta iyo tan aad adigu musharax u tahayba haddii aad ku guuleysto rajadaada ugu fiican iyo xiriirkaaga maxaad u malaynaysaa والله أرنتان ما قبل هذا جرتا يريه وقصنتها هي وجيه بدن بيلاده هي أنا أقول حنقبا أكو فكرة يا فكرة كوية هذا ذلك هدان قبته إن أرنتا موضوع دبلو ونقضه دبلو لقت الشطو لبلابو ديالوج عم وده هذا هذا أيضا لك عشان هذا شرع ديشنت يا برلمان كاي ضدك civil society كاي ضدك قبلده كنولي problem كي قبان ضد quality له tayala oo Soomaaliya oo ma helo in arintan ka hadlaan loo saaro ay dawladda kala taliyaan ay u keenaan fikirkooda dawladdu ay gasho la tashi maamulada jira la galo sidii wax loo sameyn lahaa arin u dheer weeye process dheer u baahan weeye wax qof fikirkiisa hadana ku xirnaan kara maaha waxaan qabaa in la helo maskax iyo meel degan hadii la helo waxaan qabaa arrimaha badankooda waa la xalin karaa arrimaha badankooda waxay ka yimaadeen burburkii dagaalka sokeeye wax la xiriira weeye باكن كاني إلا كلا ججبوا إنه والماشي سحرتوا إلى أنا اللي يسوق لهم مع الجولات بانه يا ما وحياة كان بربلم كان علامة دي سوية مرك هذه مسكح في عن هجان في عن ذلك ويماده إن دبلو إيرو ذلك طبعا هذا الصومال واحد مدائن هذا يقاطين السيستم فدرال كلي هذا فدرال كاس أنا وقبائن لو وضح لسي وضح لكن la habeeyo si habaysan oo la isku raacsan yahay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada iyo waxyaalo badan bay u baahan yihiin in laga hadlo anu waxaan ku noolaan jiray wax badan dal federal system oo Canada la yiraahdo
toban dowladood aduun hadda 12 gaarin markii ugu dambeysay toban dowladood goboleed buu ahaa markasta negotiation iyo wada hadal baa jiray wax xoog iyo dagaal lagu dhameyn jiray ma jirin wax walba qadiyad kasta waa laga hadlayay waa laga negotiate galinayay gobolada xitaa marka qaar runtii isu yimaadaan dowladda dhexe si gaar ah ula wada hadlayay arrimahooda ka dhameysanayay waxyaalo badan waxay u baahan yihiin in la hadlo Soomaalidu ka wada hadasho adduunka kalena la kaashado sidoo sistemka federaalka ah ma inagu sida nin walba u fakarayo federaalka u qaato waxa loo baahan yahay adduunka in la arko sida federaalka sistemka looga dhaqmayo qolob wax laga qaato qodob walba khibrad bay u leedahay markaa bay noqonaysaa in maamul goboleeda sida lagu xaliyo laakiin hadda ay yihiin isbarbaryac badan baa jira waxaana jirta dowladda dhexe oo runtii anu ma oran karo way gabtay oo ma aysan fiirin laakiin way ka mashquushay dowladda jirtaankeeda baa ciriiri ku jira marka qodobadan ku dariyay anu kamid dowladda jirtaankeeda inuu soo noqdo nabadgelyo la helo markaaba howlaha loo geli karaa sidii dalka loo maamulo xuseen aad baad u mahadsantahay waxaan rabaa bal inaan wax kaa weydiiyo dhinacan aad loo fiirin ayaa jira oo dadka campaign ku jira oo raba in ay musharaxiin noqdaan oo dalkii hogaamiyaan dadka disability-ga ah oo waad garanaysaa wadankii 20 sano ayaa dhibaato ka dhacday dad baa naafo ku noqday dad baa indhaha ku beelay maskaxda jirooyinka batay marka qorshahaaga kugu jirtaa in aad dadka xuquuqdooda meel saartid walaal waxa weeye mardhood waxaan ku maamaahay oda dhacmood u kala sareeyaan baa loo kala qaadaa maamaadi baan isticmaalaya waxyaalaha socialka marka la weydiiyo waxaan qabaa waa important weeye waa muhiim weeye laakiin waxyaalaha hortaagan dawladdu waa shaqeyn laada dawladdu oo shaqeyn la marka hadii la yiraahdo waxaan ballan qaadayaa inaan iskuulaad furayo inaan webiye jeexayo inaan biyo keenayo iyo waxa yarahay waxaad malinaysaa inaysan wax practical ah ahayn ma garata marka kuwii maxaan ku radaa shacabkii oo dhan ba mashaakil badan haysta dad disability-ka dabcan way ka sii liitaan shacabka marka hadda aniga feeling-kayga aan lahayd waxaan oran lahaa baan xoog hala saaro laakiin waxa practical aan ahayn in wax soo shala hadda weyn xoog weyn laga qaban karo horta systemka dawladda ama kala soo celiyo asaga ayaa bilaabay in wixii ay shaqeeyaan marka waxaan qabaa anu programkii inaan hore ku sheegan baan umaleeyaa 5 qodob ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay in hoggaan tayala oo dalka mas'uuliyad qaad kara dalka u yimaado in nabadgelyada la soo celiyo in musuqmaasuqa la diriro in sharciga la ilaaliyo oo cadaalad la sameeyo in qabyaalada la yareeyo kadibna la dhameeyo ama la suuliyo shanta qodob baan anu programkii siyaasiga hadda ku wajahan yahay waa marka waa kuwa obstacle-ka ama xanibka ka saaran in waxyaalihi social sector-ka la qabto kuwa weeye marka kuwa automatically waxaan u galeynaa social sector-ka naafaduna social sector-ka kamid yihiin wad ma santahay safarka ugu horeeyay oo aad ka timi meelaas waxaad ku soo horeysay Minnesota mise meelaha soo martay ayaa jira ma safarkayga waxa hadda ka imid xamar oo 48 saac ka yar baan xamar soo moogahay Kenya transit ku ahaa Minnesota ugu hor bilaabay kadibna waxa ku xijinaya Toronto dareenkaaga reer Minnesota sidii ay ku soo dhaweeyeen maxaad ka leedahay aad buu dardar galiyay xiisa galiyay qiira galiyay mar allaba markaan sii socdo runtii meel sii tagaba waxay sii siinaysaa maxaan ku raahdaa dhiirigelin siyaada waxaad boostiga tirahdaan qoliyada xulnimada America bay sii siinaysaa marka xamartiga way siisay markii Nairobi way siisay tanna way siisay insha Allah Toronto waxaan ka rajaynayaa inta ay ka badan ka sii helo حسين خليف آدي بعد ما صنت داود يرالكو برنامج كان عندك معنا هو سما تي في سومالي سات نورد أمريكا قبل كمينيسوتا ورئيس كان وحنا كقادنا مشرح حسين خليف حاج جامع ويسوق مشرح وترتمي جقل مدحونمو صوماليا برنامج كان واحد إذن لسه عسيني أنا وعول نور شراء داود يال برنامج كان لما أنت هدي بقول مدون وحنا ذي الله نبت قليل ينولي كلام